nolosha baraaraha iyo raaxada ilaa u daacad noqoshada Mossad Israa'iil mid ka mid ah basaasiintii ugu halista badnaa ee soo maray Masar iyo saaxiibadii gallada badan ku lahayd Israa'iil Hiba Salim basaasadii jacaylka ee Mossad kama ay weyneen da'deedu 20 sano kadib markii ay dhacday dharbaaxadii 1967kii gabadh yar oo ka soo jeeda dabaqada sare ee Masar oo ku nool hoy ku yaala xaafadda injineerada mid ka mid ah xaafadaha ugu waaweyn ee Qaahira oo waqtigeeda ku qaadata barxadii xiliyadaas caanka ahayd ee Al Jazeera halkaas oo iyada iyo saaxiibadeed ay ku damaashaadi jireen sheekadooda ugu badanna ay ku wareegi jirtay raaxaysi iyo baraare maadaama uu aabaheed shaqaale ka ahaa wasaaradda waxbarashada iyo tarbiyadda waxa ay marar badan ka codsatay in waxbarasho dabadeed loo qalqaaliyo ugu dambeynna waxa ay ku guuleysatay in deeq waxbarasho loogu diro Faransiiska si ay waxbarashadeeda u dhamaystirto waxaana ay gashay jaamacadda Sorbonne ee Paris ku taala Hiba waxa lagu bartay dareenkeeda xooggan ay ku diidanayd Masar iyo rumaysnaanteedii in bulshada Carbeed liidato lagana guuleysan doono intii ay jaamacadda ku jirtay waxa ay isbarteen gabadh Yahuudiyada oo ka soo jeeda Poland waxaana markii ay hubsatay nacaybka ay dalkeeda Masar u qabto ay bilowday inay u qurxiso sawirka Israa'iil waxaana ay daawatisay muuqaalo ka turjumaya nolosha Israa'iil oo ku dhisan jacayl iyo nabadgelyo markii ay Yahuudiyada yaqiinsatay inay meeris ku sameysay maskaxdeeda waxa ay ku xidhay sarkaal ka tirsan Mossad kaasoo u soo bandhigay shaqo basaasnimo Hibana hore ayay ka aqbashay arrinkaasi maalmaha Masar waxay u diyaar garoobaysay dagaalkii October Hiba nolosheedii oo dhan waxa ay ugu adeegtay Mossad waxaana ay xasuusatay mid ka mid ah saraakiishii ciidamada Masar oo safarkeedii waxbarasho ka hor jacayl u soo bandhigtay balse ay ku gacan saydhay waa sarkaal Faaruq Cabdilxamiid Fiqi Masar ayay ku laabatay waxaana ay ka agdhowaatay Fiqi oo ay ugu dambeyn ku heshiiyeen inay isguursadaan jacaylkii darra uu qabay aawadii waxa uu xataa u faahfaahin jiray taatikada militariga waxa uu sheegay in xataa uu mar u sharaxay goobaha madaafiicda iyo gantaaraha laga rido isaga oo ku tusaya maabka bila koobanba waxay ku guuleysatay inay gebi ahaanba kasbato waxaana dhammaan taatikadii dagaalka October u soo maray dhankiisa maadaama uu ka mid ahaa saraakiisha ugu muuqa dheera ciidanka Masar kadib waxa ay ku laabatay Paris halkaas oo ay uga sii kicitintay Israa'iil waxaana ay la kulantay ra'iisul wasaarihii Israa'iil ee xilliga Golden Meir waxaana qaabilaad rasmi ah u sameeyay tiro generaal ah waxa ay Golden Meir horteeda ka tiri gabadhan yari waxa ay Israa'iil u qabatay waxa aydan idinku dhammaantiin u qabanin markiiba sirdoonka Masar waxa uu dareemay in shakhsiyad military oo sare ay sirahooda u dusiso Israa'iil waayo waxa la duqeeyay darbi loogu talagalay in lagaga hortago gantaalaha isagoo aan dhismihiisu dhammaan sidoo kalena waxa la beegsaday qaar ka mid ah goobihii madaafiicda iyo gantaaluhu yaaleen waxa la ballaariyay dabagalkii gudaha Masar iyo dalalka la jaarka ah waxaana la abuuray unug military oo baaritaan ku sameeyay qof kasta oo ka tirsan xogaga howlgallada wada baaritaanadaasi ma ay galaafan Fiqi maadaama uu taliyihiisu ku amaanay daacadnimo iyo hufnaan dhowr bilood kadib mid ka mid ah howlwadeenadii sirdoonka Masar ayaa helay waraaq uu Fiqi u diray Hibo taas oo dareen hadal ahayd oo ku dhamaatay inuu ku wargeliyay inuu dhameeyay rakibaadii aerialka raadiyowga kaasoo ogaaday in adeegsiga qalabkaas waqtigiisii laga gudbay baaritaan dheer kadib waxa uu ku guuleystay sirdoonka Masar in la helo qalabkaas waxaana caddaatay inuu ku rakiban yahay goob hoos timaada Fiqi sidaas ayaana saacado kadib lagu qabtay baaritaan kadib waxa uu qirtay Hibo balse waxa ay markaasi ku sugnayd Paris kadib waxa ay bilaabeen farsamadii lagu soo qaban lahaa Hibo waxaana ay xidhiidh la sameeyeen sirdoonka Liibiya oo ay kula heshiiyeen in aabaheed oo Liibiya ka shaqayn jiray dhakhtar la geliyo lagana dhigo mid qalliin wadnaha ah lagu samaynayo sidaas ayaana lagu geliyay dhakhtarkii Hibana lagula xidhiidhay si ay uga soo kicitinto Paris una timaado Liibiya isla markiiba sirdoonka Masar iyo kuwa Liibiya oo madaarka ku sugayay ayaa qabtay waxaana loo gudbiyay Qaahira baaritaan kadibna waxa ay qiratay dhammaan siriha ay gudbisay waxaana lagu xukumay xukun daldalaad ah Fiqina waxa lagu xukumay toogasho Israa'iil ayaa isku dayday inay wasteyn ka gasho sidii loo soo dayn lahaa waxaana Masar booqday wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ee xilligaasi Henry Kissinger waxaana uu ka codsaday Anwar Sadat oo madaxweynihii Masar ahaa in la sii daayo
balse waxa uu ku wargeliyey in la deldelay kiiskeeduna dhammaaday. qisada Hiba iyo jacaylkeeda waxaa laga matelay filim la magac baxay As-Sucuudu ila al-Haawiya, ku hoobashadii naarta, waxaana lagu tilmaamay basaasadii ugu halista badnayd ee soo martay mandaqada. waxa ay gudbisay dhammaan macluumaadkii ay Israa'iil u baahnayd, waxaana ay ugu adeegtay si daacadnimo ah ilaa dhammaadkii nolosheeda, waxaana ay ku guulaysatay in ay kasbato jacaylkeedii oo ay ku dagtay quruxdeeda, waxaana ay sidaa ku noqotay basaasadii jacaylka ee Mossad.